bismillaahi raxmaani raxiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Maracadda Show waa 11 bisha Juulaay sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid ah maxaa dhab ahaantii ka soconaya bariga dhexe ma waxa la qorsheynayaa qorshe ka dhan ah dawladda Iran waa maxay howlgalka cusub ee la doonayo in loogu magac daro dharbaaxada ma wuxuu ka xoog badan doonaa midkii hore Iran ma waxay qorsheynaysaa inay qaarijiso madaxweyne Donald Trump haddii Trump la qaarijiyo maxaa dhacaya sinaariyada iyo macluumaadka la diiwaan geliyay waxaan kaloo aan eegi doonaa cunaqabataynta Iran hadda lagu soo rogay shakhsiyaad gaar ah oo la sheegay inay muhiim ay ahaayeen taas maxay ka dhigan tahay ma waxa la jibinayaa dhammaan qodobadii lagu heshiiyay ee heshiiska isfahamka waxaan kaloo aan eegi doonaa warbixin gaar ahaaneed oo iyadana ku saabsan Iran ma waxay doonaysaa inay dib ay u dhisto xarumaheeda nuclearka iyadoo wada hadalana ay socdaan dhinaca kalena mararka qaarkii wax la isku tuurayo Ruushka qaar kamid ah qubarada nuclearka ee dib ugu celiya gudaha dalkaasi Iran dhaqdhaqaaqyada gudaha ka soconaya sawirada dhanka satellite-ka maraakiibta Mareykanka ay soo direen loona soo diray gobolka bariga dhexe iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugula wadaagaya insha Allah taala soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo Maracadda Show barnaamijka falanqaynta caalamka marka la soo dhawaada daawadayaal waxaan ku hormarayaa Iran waxay warbaahinta Imaaraadka Carabta ah ay daabacaysaa macluumaadka ku saabsan in laga shaqeynayo sidii saaxiibadeeda awoodooda loo daciifin lahaa laga bilaabo Ciraaq oo aan ognahay in howlgallo ay ka socdaan gudaha dalka Lubnaan iyo sidoo kale ilaa xitaa dhanka iyo dalka Yemen marka taa laga yimaado sawirro dhanka satellite-ka ayaa muujinaya dhaqdhaqaaq military oo aan caadi ahayn iyo sidoo kale talaabooyin dawladda Iran la rumaysay inay qaadayso si ay dib u dhis ugu sameeyso xarumaheeda dhanka nuclearka xarumahaas oo waxyeello la gaarsiiyay intii dagaalka uu socday sidoo kale xarumo cusub ayaa suuragal ah in dawladda Iran ay doonayso inay dhisto Iran xarumahaasi oo kaliya ma ahana xitaa xarumaha gantaalada iyo xarumihii kale ay dib u dayactir ku sameynayaan dhinaca kalena dhaqdhaqaaq military oo aan caadi ahayn ayuu Mareykanka sameynaya labada markab ee George Bush iyo Abraham Lincoln loogu magac daray meel 160 kilomitir u jirta biyaha Arabian Sea loo yaqaano ayaa hadda ay ku sugan yihiin halkaas oo dhaqdhaqaaq ay ka sameynayaan marka waxa la isweydiinayaa waa maxay waxyaabaha soconaya waxba salag leh aan kula wadaago macluumaadyo dhowr ah adigana xisaabaadkaada isku dhiso wargeyska Russia Today wuxuu daabacay maanta xogta ku saabsan in la helay macluumaad qarsoodi ah iyo warbixin dhameystiran oo aqalka cad ee dalka Mareykanka la wadaagay warbixintaasi oo ku saabsan qaabka loo qaabeeyo duqeyn cusub oo la doonayo in laga fuliyo gudaha dalka Iran maxaa keenay marka warbixintaas oo hadda banaanka timid iyo hadallo kala duwan oo saacadii ugu dambeeyay si weyn loo falanqeynayo kuna saabsan in la beegsado madaxweyne Donald Trump wargeyska Russia Today markay isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin kala duwan waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta Mareykanka waxa ay qalinka ay ku duugeen qorshaha howlgalka loogu magac daray dharbaaxada kaas oo la doonayo Iran si tartiib ah in loogu qaado qorshahan wuxuu soo bilowday 7 ilaa 9 bishan aan ku guda jirno waa labadii habeen ee sida weyn loo duqeynayo dalka Iran warbixinadu waxa intaas ay ku darayaan marka in Donald Trump isaga laftiisa uu doonayo sheekadan inuu iska soo gabagabeeyo inkastoo caqabado iyo culeysyo badan ay hortaagan yihiin ama ay hor yaalaan madaxweyne Trump waa maxay marka waxyaabaha salagle ee aan arkayno dhaqdhaqaaqyada socda iyo wax la diyaarinayo markaan eegno dhaqdhaqaaqyadaasi marka laga yimaado waxa jira warbixino warbaahinta la wadaagay oo si weyn loo falanqeynayo saacadii la soo dhaafay sida telefishinka CNN Wall Street Journal New York Times iyo warbaahinada Mareykanka waxay daabaceen in Israa'iil ay Mareykanka la wadaagto qorshe la doonayo Trump in lagu qaarijiyo intii magaalada Ankara oo ku sugnaa dawladda Iran ay ka shaqeynayso qorshahaasi waana mid keentay in diyaaradiisii ay dawladda Qatar siisay gabi ahaan uu bedelo kanaalka 12aad ayaa sidoo kale wuxuu baahiyay in ujeedada xogtan ay Israa'iil ugu gudbisay Mareykanka inay tahay in aragtidii madaxweyne Trump wax laga bedelo maadaama isagu ka soo horjeedo in mar kale dagaal dib loogu laabto laakiin uu aaminsan yahay in duqeymaha maaragtay marba dhinac Iran looga qaadayo in awoodeeda lagu daciifin karayo maxaa shakiga sii xoojinaya markii madaxweyne Trump yiri waa la beegsanaya maxaa ka horeeyay ama dhacdooyinka ka horeeyay maxay ahaayeen oo ay warbaahinta Israa'iil ay si weyn u falanqeysay waxa si weyn loo falanqeeyay sawiradan waa sawirada muujinaya madaxweyne Trump oo intii aaskii dawladda Iran ay Ayatollah Khamenei uu socday sawiradiisii la soo qaatay lagu dul qoray waa la dilayaa waa in la beegsadaa waa in sujuuda laga togtaa waa in loogu aargudaa Ayatollah Khamenei iyo hogaankii kale ee Iiraaniyiinta laga dilay waxa sidoo kale aad loo soo qaatay hadaladii hanjabaada ah ee ka soo yaray wasaaradda sirdoonka ee dawladda Iran iyo mas'uuliyiin kale intii aaska lagu guda jiray oo ay lahaayeen waan u aargudaynaa
isagaba Trump horena uu u sheegay bartilmaameedka koowaad inuu yahay tani markii 2020kii uu dilay ama uu amray in la beegsado Qasem Soleimani. warbaahintu marka waxay falanqeynaysaa haddii madaxweyne Trump la beegsado waa maxay labada arrin ee dhici karta haddii aana la beegsana scenario-da suuragalka ay tahay in hadda laga shaqeynayo si howlgalka dharbaaxada ah iyo hadalka madaxweyne Trump maanta ka soo baxay ee ah aqalka cad warqada uu saxiixay uu u gudbiyay waxa ku qoran iyo sida isu qabanayaan iyo sida wax isugu aadan yihiin aan kula wadaago. waxa la yiri waxa suuragal ah falanqeeyaasha sida aaminsan yihiin midda koowaad in weer lagu qaado madaxweyne Trump weerarkaasi Trump uu ka badbaado lana yiraahdo Iran ayaa ninkan wali eryanaysa waa markii afraad ee la beegsanayo horey dhigta ayaa looga dhaawacay marar kala duwan isagoo meel jooga ayaa la beegsaday. taasna waxa la doonayaa in halis looga dhigo si aragtida shacabka Mareykanka loo bedelo. maxay Mareykanka shacabku hadda ma taageersana in howlgal military mar kale dib loogu laabto laguna qaado dalkaasi Iran. scenario-da labaad oo aad u halis badanna waxay tahay in madaxweyne Trump gabi ahaan laga taqaluso iyadoo sirdoonno iyo ama gudaha Mareykanka kuwa jooga ama kuwa dibadaba la adeegsanayo taas oo la mid noqon karta Ciraaq weerarkii lagu qaaday xilligii madaxweyne Saddam uu maamulayay oo la lahaa nuclear ay haystaan halis ay caalamka idil ay ku yihiin New York idil ay Mareykanka idil ay halis ku yihiin waa in hubkan mass destruction ama burburka xooggan ee geysan karaya Ciraaq laga soo qabtaa. Ciraaqna markii weerarka lagu qaaday waxba laguma soo arkin. sidaas la mid marka waxa dhici karta baa la yiri Trump in la beegsado shacabkii Mareykanka dhinaca kale wax laga tuso madaxweynihiina ayaa la dilay Iran halis ay ku tahay madaxda dawladda Mareykanka kadibna dukumdaakum laga dhigo gudaha dalkaasi Iran. maxay tahay sababta marka dhacdooyinkan ay isugu eg yihiin qoraalka madaxweyne Trump uu ku baahiyay bartiisa through social media loo yaqaano warbaahintana ay falanqeysay kadib xogtii sirdoon ee dilkiisa ku saabsaneed ayaa dhigaya in madaxweyne Trump uu amray in ka badan 1,000 gantaal in lagu baabi'iyo gudaha dalka Iran oo dukumdaakum laga dhigo xarumaha shidaalka tamarta biyaha xarumaha nuclearka dib loogu celiyo guud ahaan Iran qarniyo ka hor. markaad eegto marka waxaad moodaa dhacdooyinkan oo idil aan kula wadaagaya inay isku xiran yihiin oo dhacdada kale ay ku xirmayso iyada oo ololahaas aadka u xoogan uu ka socdo gudaha dalka Mareykanka. Iran lafteeda way dareysan tahay sheekada iyo sidee wax u socdaan laakiin iyaga arrin kale oo aad u halis badan ayaa hortaala waatan koowaade marinka Hormuz oo Mareykanka iyo reer galbeedka ay doonayaan in gacanta ama awoodda dawladda Iran gabi ahaan laga bixiyo. Iran taas waxay u aragtaa carqalad ama caqabad aad u weyn ayay u aragtaa. maxaa yeelay waxay rumaysan yihiin in haddii cunaqabataynta laga qaado dhaqaalahoodii dib loogu soo celiyo laakiin marinka Hormuz laga faramareejiyo inaanay haysan wax kale oo ay ku gorgortamaan oo ay ku sii dagaalami karayaan Mareykanka iyo guud ahaan dunidana ay ku cadaadin karayaan. waana mid keenta maanta inuu socdaal degdeg ah hadana mar kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Iran uu ku aado magaalada caasimada ah dalka Cumaan. maxay leeyahay Cumaan Iran waxay dareysanta xogaa dhankeeda in wax un ay ka socdaan. sababtu maxay tahay Mareykanka iyo reer galbeedka waxay isla qaateen aragti ah in inta ugu badan maraakiibta dhanka Cumaan ay ka maraan marinka Hormuz oo 40% dhanka Iran gabi ahaan laga maarmo. Iran waxay taagan tahay marinka Hormuz iyo maamulkiisa iyo waxa ku saabsan annaga iyo Cumaan ayaa isla qaadanayno mana ahan Mareykan inaad meesha soo gasho maxaa adiga ka galay qodobadii hore loogu heshiiyay waxay dhigayeen in Iran ay maamusho marinka Hormuz muddo 60 maalmood ana iyada ay dib ay u furto. waxay dareensantaa marka caqabad aad u weyn inay noqon doonto si lamida markii xoogaga iska cabinta ee magaalada Gaza gabi ahaanba maxaabiistii lagala wareegay wax kale ay ku gorgortamaan ilaa iminka ma hayaan. waana mid keentay in dhowr jeer la duqeeyo qaybo badan oo kamid ah gudaha marinka Gaza. wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ciraaq maanta wuxuu ku sugan yahay magaalada caasimada dalkaasi Cumaan waxaana lagu waramayaa mas'uuliyiinta dawladda Cumaan inuu arrimahan uu kala hadli doono. waxaa jira marka dhacdooyin kale oo hadda soo kordhay oo ku xirmaya sheekooyinka aan kula wadaagay. dhacdadaas waxay tahay saacadii ugu dambeeyay wasaaradda maaliyadda ee dawladda Mareykanka cunaqabateyn ayay shakhsiyaad Iiraaniyiin ah ay ku soo rogtay kuwaas oo la tuhunsan yahay dhaqaale ahaan Iran inay aad u kabayaan. waxaa kamid ah nin magaciisa lagu sheegay Ali Al-Ansari oo la rumaysan yahay inuu Imaaraadka uu degan yahay. Mareykanka ninkan waxay ku tilmaameen maalgeliyaha muhiimka ah ee hogaamiyaha iminka talada haya Mujtaba Khamenei. waxaana yiraahdeen isaga iyo in ka badan 13 ruux oo kale iyo shabakada kale cunaqabateyn ayaa lagu soo rogay dhaqdhaqaaq badan ma sameyn karaan iyo dhanka waliba dhaqaalahooda. waxbaad moodaa marka inay salag leeyihiin waana sababtan bilowgiiba idin yiri waxba salag leh.
heshiiskii ugu dambeeyay isfahamka ah wuxuu dhigaya cunaqabateyn in la qaado laakiin hadda in Iiraan cunaqabateyn cusub lagu soo rogo waxaad moodaa in culaysyo badan ay jiraan arrimahaas oo idil ayaa soconaya ma howlgalka Iiraan la doonayo in lagu qaado mar kale ee dharbaaxada loogu magac daray ayaa guuleysan doona mise Iiraaniyiintana kaartada way fahmi doonaan oo dhinaca kale ay wax walba u weecin doonaan maadaama dhanka wada hadalka ee aad ay u dheereeyaan qodobkan wax walba oo ka soo kordha oo kula wadaagaya insha Allah like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay dhaqdhaqaaqyo cusub oo ku saabsan barnaamijka nuclear-ka ee dawladda Iiraan ayaa mar kale soo cusboonaaday saacadihii la soo dhaafay ruushka wuxuu dib ugu celiyay magaalada Bushehr lagu magacaabo shakhsiyaad injineer ah oo muhiim u ahaa dhanka iyo warshada tamarta korontada nuclear-ka oo magaaladani ku taala oo xarunta Rosatom ama shirkadda Rosatom ee dalkaasi ruushka ay dhisayso waxa isweydiin mudan magaaladan agagaarkeeda maalmihii ugu dambeeyay duqeymo ayaa ka dhacay waliba Mareykanka ayaa duqeeyay sidee xaaladu isu bedeshay ruushka hore ayuu kala baxay qaar kamid ah injineeradiisa ka shaqeynaya warshada tamarta korontada ee magaalada Bushehr waa mid kamid ah xarumaha ugu muhiimsan ee dawladda Iiraan dhaqdhaqaaqyo cusub ayaa ka soconaya laba xarumood oo muhiim u ah barnaamijka nuclear-ka ee dawladda Iiraan waxaana mar kale dhaqdhaqaaqyadaasi laga soo qaaday sawirro dhanka satellite-ka ah iyadoo warbaahintii reer galbeedka si weyn ugu mashquulsan yihiin Iiraan iyo magaalooyinkeeda waxa ka soconaya gaar ahaan sawirrada satellite-ka ay qaadayaan sawirrada cusub waxay muujinayaan in Iiraan ay bilowday dayactir inay ku sameyso xarun muhiim u ah nuclear-ka dawladda Iiraan iyo sidoo kale saldhig military oo waxyeelo ay soo gaartay intii dagaalkii ugu dambeeyay uu socday oo Iiraan ay kula jirtay Mareykanka iyo sidoo kale Israel shirkadda nuclear-ka dawladda ruushka ee Rosatom ayaa sheegtay markaa in 6 shaqaale ugu horeeyay ay bilaabeen inay dib ay ugu laabtaan xarunta Bushehr lagu magacaabo talaabadani waxay timid kadib markii ruushka boqolaal injineero farsamayaqaano iyo shaqaalahaba iyo qoysaskoodaba uu ka daadguriyay gudaha dalka Iiraan markii dagaalka Mareykanka iyo Israel ay ku qaadeen 28 February gudaha dalkaasi Iiraan Rosatom waxay hore u hakisay howlaha dhismaha ee laba cutub oo cusub oo magaaladani ku yaala magaalada Bushehr lagu magacaabo sabab la xiriirta duqeymaha iyo qaraxyada ka dhacay agagaarka gobolkan inkastoo xarunta lafteeda si toos ah loo burburin ruushka waxa kale oo uu sheegay in xaaladda dhanka amniga ee qatar ay gelisay shaqaalaha guud ee dalkaasi raashka taasoo keentay in howlihii dhismaha la yareeyo shaqaalahana si tartiib looga saaro dalkaasi Iiraan dib u soo celinta marka 6 injineero waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horeysay qorshe ballaaran oo la doonayo in shaqaalaha Rosatom mar kale dib loogu celiyo gudaha dalka Iiraan haddii qatarta duqeymaha ay si yaraadaan waxa la doonayaa xubno kale in halkaas loo diro madaxa Rosatom Alexey Ligachev ayaa waxa uu shaacu ka qaaday in injineerada ruushka ay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan dalka Iiraan marka la xaqiijiyo in qalqal dhanka amniga ah uusan jirin warshadan waa mid kamid ah warshadaha tamarta nuclear-ka ee dawladda Iiraan oo inta badan loogu talagalay soo saaridda korontada rayidka cutubka koowaad ayaa shaqeynaya halka shirkadda Rosatom ay dhisayso cutubyada labaad iyo saddexaad sida shirkaddu ay sheegtay qalabka muhiimka ee cutubyada labaad iyo saddexaad ayaa weli lagu farsameynaya gudaha dalka ruushka waxaana qorshuhu uu yahay in qalabka waaweyn loo diro gudaha dalka Iiraan sanadka 2027 sidaa daraadeed ku soo noqoshada shaqaalaha ruushka waxay muujinaysaa in Moscow ay rumaysan tahay in xaaladda amni ee magaaladani ay tahay mid hadda ka degan sidii bilihii hore ay ahayd waxa sidoo kale cadeynaysa in ruushka uusan weli ka tanaasulin mashruuca nuclear-ka ee dawladda Iiraan inkastoo dagaalka cunaqabateynta iyo cadaadiska Mareykanka ay hakad ay geliyeen howlahani hase yeeshee horumarka warshada tamarta magaalada Bushehr waxay ku soo beegmaysaa xilli warar kale ay soo baxayaan oo xarunta Telegan lagu magacaabo oo gobolka Parchin ka tirsan dhacdana koonfur bari dalkaasi Iiraan in sawirrada yaxkaameed laga qaaday ay muujinayaan isbedel weyn oo halkaasi ka socda iyadoo Iiraan nadiifin ay wado dayactir dhanka wadooyinka iyo xoojinta difaaca dhismayaasha dhulka hoostiisa ah Mahadka sayniska iyo ammaanka ee caalamiga ee ISI loo soo gaabiyo ayaa sheegay in sawirradu ay muujinayaan in xarunta dayactir lagu sameeyay burburkii laga qaaday godadkii la duqeeyay gabi ahaan la daboolayo waliba si joogto ah Telegan labo ma ahan warshad koronto oo sida Bushehr oo kale waana xarun sida la sheegay ku dhex taala dhismaha militariga ah ee deegaanka Parchin waxaana sirdoonada reer galbeedka iyo hay'adaha caalamiga cilmi baarista ay muddo dheer ay ku xiriiriyeen ama ay la xiriiriyeen barnaamijkii hore ee dawladda Iiraan ee daraasadda hubka nuclear-ka Israel xaruntan waxay weerartay bishii Oktoobar 2024 iyadoo sawirradii waqtigaasi ay muujiyeen burbur weyn oo gaaray dhismayaal loo maleynayay in lagu sameynayo ama lagu sameyn jiray tijaabooyinka la xiriira qaraxyada iyo naqshadeynta madaxyada nuclear-ka warbixinada cusub waxa ay sheegayaan in dawladda Iiraan kaliya aysan sameynin dayactir caadi ah
balse sidoo kale xarunta ay ka dhigayso mid adkaysi badan u leh oo u adkaysan karta duqeyn mustaqbalka ay la kulanto. waxaa sidoo kale la arkay shub culus, daboolidda godadka qaraxyada. si kastaba haatee sawirada dayax-gacmeedyadan waxay caddaynayaan dhaqdhaqaaq dhismo oo aanan caadi ahayn. labada dhacdo ee ah in magaalada Busheirna dib loogu soo celiyay shaqaalihii ka shaqeynayay korontada iyo sidoo kale in barnaamijka nuclearka ee dowladda Iran iyo xarumihii laga burburiyo dib u dayactir ku saameynayso waxay ku soo beegmayaan ama astaan ay u tahay dib u bilaabidda mashruuca tamarta korontada rayidka iyo soo laabashada kalsoonida dhanka amniga. tanina waxay Mareykanka iyo Israa'iil ku abuuri karaysaa walaac kale oo ah in Iran dagaalka kadib ay dib u dhisayso awoodeeda nuclearka iyo kaabayaasha military ilaa ay doonayaan in laga helo kormeer madax bannaan oo caddaynaya in gabi ahaanba dowladda Iran aysan ku dhiiranaynin barnaamijka nuclearka. Iiraaniyiinta hawshoodii ayay wataan, dhinaca kalena cadaadis xoogan ayaa saaran. wax walba oo ka soo kordha arrimaha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah. like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. ugu dambeyntiina Ruushka duqeyntii ugu cusleed ayuu maanta waxa uu ka fuliyay magaalada Kiev oo caasimadda dalka Ukraine. wararka qaar waxay sheegayaan in xarumo muhiim u ahaa xitaa biyihii magaaladaasi in waxyeello ay soo gaartay. arrintan Ruushka wuxuu kaga jawaabayaa kadib markii saacadii ugu dambeeyay la beegsaday xarumo lagu farsameeyo shidaalka oo ku yaala agagaarka magaalada Moscow iyo sidoo kale xarumo deegaanada dhinaca xadka dhaca. Ukraine ayaa diyaarado drones u adeegsanaysa in goobahan ay beegsato. dagaalku waa uu sii xoogeysanaya. wax walba oo soo kordhana waan kula wadaagi doonaa insha Allah. like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. guud ahaan falanqayntii qaybtan waa naga intaa falanqaynta la mid intaan ku kulmi doono. nabadgelyo.